So I need inaan address gareeyo reality runta ah meesha ka jira. Dadku waxay leeyihiin why badeena muranka loo gelinayaa, why looga hadlayaa. su-aashaasi shacabka Soomaaliyeed qof kasta wuxuu leeyahay haddaad badda Soomaaliya soo hadal qaadid waa bad baad gadanaysaa Soomaaliya, maxaa uga hadlaysaa? intaasoo sanaa soo jirin, intaasoo dawlad soo ahayn, intaasoo kan ahayn, maxaa badeena maanta muran geliyey? su-aal dadka dhan isweydiinayaan waayo. badeena muran annaga maana gelin, laakiin badeennii waa nalagu qabsaday. gacantaada haddii lagu qabsadana maxaa la yidhahdaa? waa laga garbaxaa. Kenya iyadoo ka faa'iidaysanaysa, dowladda Kenya iyadoo ka faa'iidaysanaysa burburkayadii, dowlad la-aantayadii, ayay 2005 waxay jeexatay xuduud ayada keligeed ay calaamadsatay. isla markaa ay xuduudkaa samaysatayna kambaniyo ajaanib ah ayay qandaraasyo ku siisay inay cilmi baaris ku sameeyaan oo ay kala soo baxaan wixii khayraad ay ka helaan. maalinkaasay badeenu muran gashay ee qof Soomaaliyeedna ma gelin muran, qof Soomaaliyeedna kama hadlin, qof Soomaaliyeedna Kenya kulama gorgortamin inuu dhulkayagii badayadooda tanaasulo. ilaa maalinka ilaa maantana way ku jirtaa. Kenya weli way ku jirtaa 2005 ilaa hadda. waxaan u malaynayaa ilaa 6-7 company ayay qandaraas ku siisay. oo blogyada ugu badan ee qandaraas ku siisay oo Talyaaniga laga leeyahay, Total baa ku jirta oo Faransiiska laga leeyahay, Andraco iyadana oo u malaynayaa Ingiriiska inay tahay, Zalira oo laga leeyahay Mareykanka, Start Oil oo laga leeyahay Norway, intaasoo company ayay qandaraas kula gashay dowladda Kenya in badda Soomaaliyeed ee iyadu ay jeexatay ay muxuu ahaa isha cilmi baaris ugu sameeyaan si khayraadka ku jira ay uga soo baxay. see u wajahnay anaga marka? that's the measha muranka badan oo ka dhaca waa halkaas waay marka. wadaniyad xume iyo dhulkii inay iibsadaan bay u galeen, laakiin waxaan leeyahay oo keliya dadaalna way ka ahayd. tabardarri markaas dowladeed oo jirtayna way jirtay oo daciif ah, oo runtii dowladda Kenya ay aad iyo aad ugu qabeen baahi in ay arrimaha qaar kala shaqayso, iyo aqoon darro xagga shuruucda iyo badaha ah oo dadkii markaa mas-uuliyiinta ahaa ee haysay dartood ayay maaragtay mistakes u sameeyeen. ma dhahayo lacag bay qaateen sida dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin, ma dhahayo dowladda Kenya ayaa soo dirsatay, laakiin waxaan leeyahay waxay isku dayeen oo ay bilaabeen in ay ka hadlaan badeeni. haddayna ka hadli lahayna dee wax way yaran lahaayeen. ayaga ugu horreeyey inay dhahaan 2000 ay gashay. hadalkii ugu horreeyey oo dowladda Soomaaliyeed ka soo baxa wuxuu bilowday 2009. intaa ka horreysay oo dhan cid ka hadashay ma jirin. so they deserve I think to inay credit ku leeyihiin inay ka hadlaan oo ay muujiyaan ba horta in dhulkeennii maqan yahay, in badeennii maqan tahay inay muujinaysaa. dadkii xataa saxiixay baa ka mid ahaa ama u ololeynaya in la saxiixo ayaa baarlamaanka ka mid ahaa. at the same time la diiday markay arkeen waxa ku qoran. shakhsiyaad waa laga yaabaa inay interest gaar ku jirto, shakhsiyaad, laakiin dowlad ahaan maya. waad ogtihiin international treatieska ama conventionska ama dowladaha kale ay la gasho sharci ma aha ilaa baarlamaanka waddankaasi ay ratification ku sameeyaan oo ansixiyaan. baarlamaanka hadduu diido waa la diiday, hadduu ansixiyana wuu ansixay, markaasuu international treaty noqonaa. kan MOU ba ahaaba maba ahayn treaty iyo convention iyo midna ma ahayn. memorandum of understanding yani isfaham in laga wada hadlo
labada dawlad waxay isku afgarteen in laga wada hadlo muranka siyaasadeed muranka badeed ee ka dhaxeeya taas ma dhul baa lagu bixiyey see loo dhihi karaa waaye in laga wada hadlo waaba la haystaa maxaa loo dhihi waay waaba la haystaa war dhulkayga iga bax waa leey ay may aan wada hadalno waa imaanaysaa I think they have right inay dhahaan why mistakes iyo khaladaad qaanuuni ah markii aan akrinin ka soo baxay way jiraan laakiin waa wax burburay waay exactly mar hadduu baarlamaanka diiday the end of story marka kaas wax qiimo ah ma yeelanin Kenyana sidii bay ugu sii jirtay dawladda Soomaaliyeedna qoraal MOU-gaas ku diidayso ayay baarlamaanka go'aankiisa ayay United Nations u direen halkaas uu ku baaba'ay maxaa hadda nooleeyay su'aasha imaanaysa waxa waaye maxaa hadda nooleeyay in dacwad la gudbiyo maxaa hadda keenay haddana waxaa keenay sidii bay badda ugu jiraan sidii kambaniyaasha ugu jiraan marka aamusaynaa muu daynaynaa ma kala heshiinaynaa ma awoodnaa inaan dabaabaad iyo diyaaradaynta ku kicino aan xoog uga qabsano the only option aan haysano waxa waaye in aan international court of justice ama maxkamadda caalamiga aan ka dacweyno that's the only option aan nagu heli karno Soomaaliya taana muxuu yahay mowqifkeena dadka marka waxaa weli walwal Soomaalidu ka hayaa oo dadka Soomaaliyeed concern-kooda uu ku saabsan yahay weli ma u bisleen capacity ahaan dhaqaale ahaan aqoon ahaan wacyi ahaan diplomatic ahaan dawladda Kenya internationally ma face gareyn karno dawlad aan burburin oo jirtay oo awood leh oo dhaqaale leh wax walba leh shuruucdeeda nidaamkeeda leh sometimes waxaan dhahaynaa dawladihii reer galbeedka oo dhan ay la jiraan oo taageerayaan iyo annagoo dawlad burburtay oo weli institutionkeena una dhisnayn ma noqon karno isku miisaan waxaa laga yaabaa inay maxkamaddii nooga guulaystaan it's too early waa lagu degdegay waxyaabahaas oo dhan questionskaas oo dhan aan maskaxdeena ka buuxaayo badan ka mid ah and it's legitimate xaq waaye inaad ka guuxdaan arrintaas ama Soomaalidu ay ka guuxdo anigu marka dhinac siyaasadeed iyo dhinac diplomatic iyo dhinac kale iyo dhinac dhaqaale midna kama fiirinayo waxaa ka fiirinaya dhinaca qaanuunka shuruucda dawladda Kenya u yaala waa waxa anagu aan ku dacwoonayno Kenya self sharciga ku yaala oo maritime law-gooda ah wuxuu tilmaamayaa qaabka anagu aan dhulkayaga hadda u raadinayno sharcigeenuna kaasuu tilmaamaya sharciga kale oo la yidhaahdo UNCLOS the third and his annex oo 160 dawladood oo caalamka ay saxiixeen oo Kenya ku jirto annaguna aan ku jirno isaguna wuxuu u dhigan yahay sida anagu aan ku dacwoonayno so we don't have worry about that wax walwal ah dhinaca qaanuunka kama qabo I'm 100%, 200%, 300% confident inaan ku guuleysanayno kiiskaas maxkamadda sharcigaasi wuxuu leeyahay laba dawlad oo kasta oo xuduud badeed uu ka dhaxeeyo waxay xaq u leeyihiin inay ayagu ka heshiiyaan qaabka uu xadkooda noqonayo that's the option hadday isku afgaran waayaan oo ka heshiin waayaanna sharcigaasaa lagu dhaqayaa sharcigaasna wuxuu leeyahay sidaas iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa annagii Kenya waa ku heshiin weyne dhulkeennii iyagana inay qaataan bay rabaan annagana noo dhigaan leenahay waa ku heshiin weyne haddaan ku heshiin weyne markaa sharcigaasaa noo dhexeeya aragtida kale oo khusaysa waxa waaye waxaan ku cabiraynaa duruufaheena maxkamadaheena maxkamadaha Afrika ayaan maxkamadan barbar dhigaynaa
marka leena way naga dhaqaalo badan tahay macnaheedu waxa weeye maxkamadda la loo siinaya ila sharciga waa qoran yahay waakan wuxuu leeyahay laynka ay dawladda Kenya samaysatay waa layn direct ah sharciguna wuxuu leeyahay xuduud badeed wuxuu noqonayaa equidistance line waa layn saas u jarma so laynka isaa u jeexdaan midkaan angalka u dhaxeeya oo dhan bay rabaan inay qaataan waa boqol waa 1,000 I mean 100,000 133,000 kilometer square feet boqol iyo saddex iyo soddon kun kilometer oo square away dhulka aan leenahay oo Kenya soo gashay oo sheeganaysa it's not easy even 1 inch baan ka tanaasuli karin 1 inch ma karnaa waxaan jeclaan lahaa iyadana waxa aad u badan in warar badan oo shaacaad ah oo la leeyahay dawladda Norway doorka Norway dawladihii 2005 markii Kenya ay calaamasatay badeena ee qandaraaska ku siisay ka mid ahayd Start Oil waa company-ga ugu weyn ee Norway ee shidaalka way ka mid ahaayeen company-yaashii unit-yada ka qaatay ama blogyada laga siiyay number 1 tuhunka ay Soomaalidu ka qabto kaasa ugu weyn number 2 waxaa jira 2009kii in protocol ka soo baxay United Nations oo ay leeyihiin sorry inaan ku dheeraado qodobkan because protocol ka soo baxay 2009kii ayaa jiray oo ay leeyihiin continental shelf-ga oo waddan kasta leeyahay waa inuu study ku soo sameeyaa oo deadline-kaas uu ku soo gudbiyaa muddadaas continental shelf-kiisa waddan walba يعني marka laga hadlaayo badaha dad badan oo iga aqoon badan inay joogaan waa laga yaabaa aniga ma iga khabiir bado laakiin waa territorial sea ka bilaabma oo ilaa 12 meel u badan economic ama exclusive economic zone waasna 200 meel ah iyo continental shelf oo ilaa 350 mile gaarsiisa midba awood gaar ah ayuu waddankaas ku leeyahay for example territorial sea waxaa leedahay full control hawada badda kalluunkeeda biyaha iyo kheyraadka ka hooseeya baa iskale economic zone-ka markay tagto 200 mile ahna waxaad ku leedahay badda hawada ma controli kartid shaqalku meel diyaaradda rabtaa maraysa laakiin biyaha adaa iskale kalluumaysigiisa iyo kheyraadka gudaha biyaha hoostiisa ku jiran adaa iskale continental shelf ama qofka qaaradeedka waxay dhaxaana waxaad ku leedahay malihid hawada biyahana malihid laakiin waad ka faa'iideysan kartaa dadka oo dhan bay u dhaxeeyaan biyahaas laakiin dhulka hoosaad leedahay waddankaas dhulka hoose kheyraadka ku jira so 350 mayl in ah ayaan leenahay kheyraadkiisa dhulka oo dhan macnaheedu saas waay marka United Nations waxay soo saareen 350 mayl waddan walba oo banda oo sheeganaya waa inuu ku soo diyaariyaa muxuu ahaa study-giisa iyo qorshihiisa iyo siduu u leeyahay iyo baaxadiisa intay tahay iyo waxa kheyraadka laga filaayo iyo annaga yaa noo sameynaya marka dawlad miyaan lahayn awood miyaan u leenahay capacity miyaan u lahayn goodsin waxaa ahaa qodob kale ku dareen United Nations ay leeyihiin dawladaha aan awoodda u lahayn inay iyagu study-gaas ama warbixintaas diyaarsadaan waxaa ka caawin kara dawladaha horumaray ayaa ka caawin kara still dawlad annaga noo jirtay oo awood lahayd oo xataa dawlado weydiisan kartay ma jirin annaga isku jeednay markaas oo
شريفكي عبد الله يوسف وكان دقال يا أحمد العبد كل ساسة لسه ناس مسؤول سنين. I would like to mention runtii ولد عبد الله ومركز أها إرجع قارئها قرن المدود دور كيلو كعيار أنتاس سجى يا عالم وبن إلي دولة الصومالية إن أنا كريمين إن الدراسة تقوى شخص واللي بدأت لاين بيلهاي وقت بالوقت وقت جاس وحكدم بيه هذا كسو بود بسموه continental shelf كنترول كيس أردن وحلقوا ريجينيا بالي الوضع كأسوق بود بسن حلقوا ريجينيا هيئات international maritime something اللي يرادوا أو UN كترسل أيضا ما مولانيس أيضا أوتلس هذا واقع عن هذا واقع بح سو هذا وقت جاس هذا كوجي سنين وقع عن هذا واقع بحياة ولد عبد الله ممكن دور وناس مبارد ذاك قاتل عالم أوبرنيجي دولة النرويج أيام وقت دولة كلية أو قلاتي إن الصومالية كعاوسو ديارنتا محمد هاي شيء بروجكت جنتا عليه وميزانية يقلد يوفر بوباحنا. كل ده قال صنع هاي ستاتس كمبني جديد إنه قال لكن لما عوناجو أنا ونفس كذا ما أعرفه. أيها الديارية وقت جبنا كوجين وليبا مركي أغادين وليبا continental shelf جاين ماشي ودعي كل ما نكاسب بالله وليبا إن يرادين أوكي دول كان بعدما أيها يهندك علم بارست السنين هاي وحوصوا بحضي دول كان إنه دول صومالي وياهي سادرت دولة كينيا وحيرادين أنه كونتراكت كان لما قلنا واقع بحنا بكوصف دول كان حنوا أخوصنا بعدما عن ويكبر حق كونتراكت بدأ الصومالية الحالة ده الوسيداس that is رنت مرة أدي شيء تسويه حكوا سر من الجناحيو كان بنياشي كجري انتو ضبنا واقع بحال وحكوا هاي في تلياني أو أني هاي أيضا كده ديسا أنا أقول كان تمسنا كجرني حدي حقوا لين محل مرة روي بيسموه ده كونتراكت رسمي أو ليجيتيمي ده أيام لقلنا دولة كينيا حتى نكبحنا ليابيليتي جناحي وحبانا فولاي سو محكمة بقى أقول بستين دعودينا محكمة ده اسمك كلا حكم ساعة كنا أنت أول ما هرينه وححد دياريني بعد ما يكمل حديقين دجنينتي يقرالكي جناحي عن صارني حناد دياريننا هنا محكمة تدعوينه محكمة ده تلياني يجي كوس صوماليا ولا وضع سأقول وكمبنياش واقع الله وحكي لي أو كهري وعيني لحدي شنتي كلام رأيكم فيش وكبحي توتال ولي وحباكو سهري لكن وحين قعد سدنينا جناح كجرينا وكدينا بعدما كينيا وهذا الله بالله كبحيان إن بدنا وكبحيان يومدي هذا قارب سهرين وحكم عنيان liabilities وحياة أساسي كونتراكت كذا تبسيني وحال وحبيس حقيقتين لكن they agree إن كبحان وين كذا معنى المردو سيدنا قياسين بلا صوص